وقاعد بسم الله الرحمن الرحيم هالك هذا قطع ونسان وسومالي ميريا وبرنامج كي قلب كستان يدين سو جيجنا جمعة كستا شانتا قلنا إلا يلحدا إسلام بيننا بدنا واحد كوسا نقطة برنامج كي أنا ويج هرد دوغني أيا يلا كذا وطن ملها نوحي من يابلس هذا برنامج كوا حيدين حريرنا يب أنا جو عبد الملك محمد عسكره يقول بالسكري وكذلك الريحية يا عبد كنت سافركم مغندوانا صنع قندونا هدي الله هو تلو قرابو barnaamijka sida aad ogtiin marba waxaan ku soo qaadnaa qaybo kala duwan haday noqon lahayd waxbarashada haday noqon lahayd siyaasadda caafimaadka iyo waliba barnaamijka ganacsiga oo isagana halka aan ka maqnayn iyo mararka qaar kood anagu ku soo qaadana tafsiirka iyo ahadiis anagoo idinku su'aalaheena aad weydiisan kartaan hada barnaamijka maanta waxaan ku soo qaadanaa laba qaybood qaybta ugu horeysa waxaan kaga hadli doonaa runtii siyaasadda Soomaaliya sida ay markaasi u socoto iyo xagee ay ku dambeyn doontaa hadaba anagoo chance u helayna aan ka wareysano aqoon-yahan dhalinyaro ah oo runtii ka yimid magaalada North Carolina gobolka lagu magacaabo Sheraton Greensburg runtii noogu yimid magaalada Minneapolis unuguna soo booqday in dhaweedna ku maqnaa wadanka Soomaaliya sidaad ogtihiin wadanka Suleymaan waxa uu ka qayb galay shirkii dib u heshiisiinta ee ka dhacay magaalada Muqdisho hadaba shirkaasi maadaama uu noogu yimid gobolka Minnesota ninkii gudoomiyaha ka ahaa ee madaxweynaha hore Ali Mahdi laakiin si chance looma helin in markaasi su'aalo dadka ay weydiiyaan shirkaasi sidoo u dhacay maxaa laga faa'iiday maxaa ku qabsoomay yaa ka soo qayb galay intee qaybood ayuu shirkaasi ka koobnaa laakiin Suleymaan wuxuu ahaa dadkii gudida ahaa ee laga xulay gobolka Mareykanka iyagu ku hadlayay dadka degan Mareykanka inay uga qayb galaan shirkaasi tagayna magaalada Muqdisho hadaba wixii uu ku soo arkay shirkaasi sidii uu u dhacay ayaanu ka wareysan doonaa hadii Allah uu ogolaado qaybta labaadna waxaanu ka wareysan doonaa Puntland oo isaguna markaasi uu tagay ilaa iyo Laascaanood qabsashadii Laascaanood ee Somaliland ay soo weerartay iyo Puntland sidii ay markaasi ay u difaacaysay ayaanu ka wareysan doonaa intii uu ku maqnaa iyo gabagabadii isagoo laga yaabo inuu hadda uu soo galay damac siyaasadeed oo aan halkaasi ka maqnayn ee uu rabo inuu istaago Puntland doorashooyinka haata ka dhici doona hadii Allah uu ogolaado qaybta dambe barnaamijkana Cusmaan Sheekh oo runtii aad wada garanayseen hadii Allah uu ogolaado ayaa halkan aanu ku qaabili doonaa hadaba barnaamijkan waa badan yahay telefoonada waxaan ka baqanaynaa inaad direysaan bas marka hore aan ku soo dhaweeyo runtii Suleymaan ku soo dhaweeyo Cabdi Malik aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida wanaagsan aad ugu soo dhaweyseen telefishinkiinan community-ga Minnesota aad iyo aad ku mahadinayaa sida sharafta leh aad baan ugu faraxsanahay maanta aan u warramo ama wareysto ama su'aal laga weydiiyo ay weydiiyaan community-ga Minnesota Soomaaliyeed haddii ilaahay bidankii wixii ogaalkeeda iyo sida wax ogahayna aan uga warramo wadankii marka وقرتي سليمان أدب ما صنطاي تذكر قرر واحد لقى بني هذان إن أسكن يوسن قرالك هوس قرن خلينا نقول مشرحا يوسن دحين مركب واحد اللي وقفت الضمبة صاروا بيجانا يا مركب كويدي هدي الله وتلوبرا إن هرت واحد قيب يرنو جورتا بس شركة سداب وحمر وقدعي وينوجنه هو ميريا شيء وحصلون ولا ده لكن إنسايد وحمل لقى فايدة صح واحد بدن بلقى فايدة هرت تيا هيد سومالي سكومي مكرتو سومالي سكومي مكرتو inuu dintay meel isku timaadiyago arrimahooda iyo danahooda kama hadli karto tiimasho way ka baxday waxay noqotay Soomaali inay isku timaado wada hadasho wixii khilaafkeena ka wada hadasho of course waa markii ugu horeysay wadanka gudihiisa lagu qabto shir Soomaaliyeed oo Soomaaliya oo dhan u dhantahay ergooyin fara badan oo tiradoodu gaarayso ilaa 3,000 oo leh maxaan ku raad duubab leh oo malaayikhle oo bahalkii aan ii sheeg hadii habeen kale yahay ismo iyo garaado iyo ogaasyo baa ka soo qayb galay caaqilo nin garbood wax garad yani ila dhammaan mujtamaca Soomaaliyeed dhinac walba baa ka soo qayb galay si runtaayadoo cidina waxba ha garanay qolo walba isku dayaysan qolada kale ay u maaragtay isku soo dhawaadaan maadaama in badan la kala maqnaa Soomaaliya 17 sanadood ku dhawaad bay markaa burbur ku jirtay si at least bal la iskugu soo noqdo la wada hadlo la is saamaxo waxyaalo badan oo kala tabanay la isku sheego sida runta wuxuu ahaa shir fiican u dhacay buu ahaa shir buu ahaa in la sii inuu hamba qaado halka laga sii wado waxa fulaab lagu sii sameeyo sida runtaana wanaag buu ku dhamaaday inuu aad baa loo baqay oo lahaa waa kaasoo masuuloonayso xamar oo intaas sano la isku dilay ma dhici karto in Soomaaliya la isku yimaado dad baa naftooda iyagoo magaranaysa inuu u diyaaro wax kasta ku dhacay inay u huraan Soomaaliya meel isku yimaadeen ka qayb gashay yimaadeen kana qayb galeen waxaana ka soo baxay wax aad u wanaagsan oo dhaxal gal of course wixii de maanta follow up lagu mas'ala lama oran karo exactly waxa soo cad baa ka soo muuqda way wali warana xamar waxa ka socda dagaal baa ka socda Soomaaliya wali burbur baa ka socda hadii artidaas soo maqlana dhimasho iyo dagaal socda waa maqlana laakiin de wixii in laga haro ma aha ilaa wixii wax weeye
inuu marka wax dhacaanba ama wadaba haddaadan sii wado inaadan ilaa iyo intaad maqaan ka gaaraysid aadan wadin dee 17 sano wadda burburaana maalin ku hagaajin karin shirkan ku hagaajin marka of course shirku ugu wanaagsanaa waana tan hadda ilaa Djibouti ilaa meel dibashiinta socoto oo mid siyaasad loo socdo marka waa la oran karaa waxaad wanaagsan baa maadaama aad ka tagtay Mareykanka oo shirkaada aaday inteebad isleedahay bay diasporadu ka dhex muuqdeen shirka aad iyo aad anaga ka mid ahaa rag badan oo odayaal aan meesha isku baranoo ka yimi Yurub Mareykanka gudihiisa Canada ka yimi ayaan meesha isku aragnay si runtii aad baan uga dhex muuqanay waxaan isku daynay waliba inaanu dadka wax badan uga aqal celino waxaan la shaqeynay gudoonkan la shaqeynay ilaa Cali Mahdi oo chairmanka ilaa iyo 9kii shir gudoonka oo ahayd ee gudoomiyaasha isku xigeenada ahayd oo la shaqeynay ilaa iyo waxaan la shaqeynay general secretary aan la shaqeynay waxa la wixii aqoontayada ah aan ku kordhin karo demokrasiga wadankan aanu ka nimiye civilization iyo hor democracy aad uga shaqeeyana bal sidii aan uga faa'iideyn lahayn oo dadka waran lahayn war kala dambeynta iyo sida hadalka iskaga sugayaan iyo sida la isku aqal celinayo waxyaalo aad badan bay qabteen si fiican bay uga dhex muuqdeen ilaa iyo dhamaadkiina waan joognaa dee bishu dhamaanaysan aad iyo walaalo kara waan gartay aan ka gudubno kaas shirkii waxaa tiri gabagabadii wuxuu ku dhamaaday gulbu ku dhamaaday ka bacda shirkii waxaad aaday oo chance washington raacday isimadii ka yimid gobolada Soomaaliya waxaan aaday magaalada Garowe halka iyada maxaad kala sida runta anigu markii aan aadayay Boocame waxa weeye Boocame waxay of course markii October 15 October la qabsaday Laascaanood markaas inuu igu dhalatay inuu taana maxaad ka geysan kartaa yaani waa deegaankan ka yimi la socdo meeshan ku dhasay inuu ku koray iskuulka ka soo bilaabay inuu deegaankeygii marka sidii aan bal wax uga qaban lahaa bal qabsashada iyo nabad xumida ka taagan aan uga qaban lahaa ba marka waxaan anigu aad waliba uga shaqeeyay rag badan oo kale ila midaba sidii u dhici lahaa shir la isku yimaado oo laga wada hadlo dhibaatada tan dhacday ee wadanka lagu qabsaday lagu soo weeraray sida gardarrada ah marka definitely waxaan markaa aanu keenay inaanu markaa abaabulo shirkii Boocamena waxa weeye anigu markaa xamar baan joogay abaabulkiisii hore laakiin markuu bilaamayay baa la yeeray invitation lagu diray kaama maarana oo sidii baan ku tagay waxaana ka mid ah 3 nin shir gudoonka shirka maamulay baan ka mid ahaa ilaa 2 wiil socday isimaduna markaa halkaas aan isku nimay isimadii u dhashay gobolada Soomaaliya sanaaga aan cidi ka maqnayn baa meesha isku yimi waxa ka soo baxay inuu waxyaalo aad u dhaxalgala ka soo baxay oo waxa weeye inuu waxay tustaa midnimo dadka deegaanka degan inuu midoobeen ay u midoobeen bal inuu colaadan ku soo kordhay cadawgan wadankoodii qabsaday sidii ay magaranaysaa ay isaga saarlahayn marka definitely saas ku yimaan shirku tagay aad baad maasantahay Salaaman sidaad ogtahay maadaama qurbaad ka timid meeshii aad tagtay shirna ka qayb gashay ma laga yaabaa inaad eegtay dhibaatadan maxaa kalifay in magaalada Laascaanood ay qabsadaan gobolada waqooyi horta waxa kan Laascaanood qabsashadeedu hadda ma dhicin nimankan Somaliland meesha jooga in badan bay meeshan soo socdeen 4 sano dheeraad bay dhulku Laascaanood gobol bay ka tirsan leeyahay Sool gobolka Sool ay ku soo xadgudbeen oo soo dhaafeen ilaa intaasba waxa weeye waa looga gardaradaan inay sameeyaan meesha way ka socotay laakiin si wax badan baa dadku xeerinayaan oo inaan la isku dhicin inaan dagaal meesha ka bilaaban ilaa ay ku dhacday in Laascaanood gudaheeda la qabsado marka dadku way ka qaateen waa la oran karaa sabab badan baa keenay in la qabsado laakiin waxay noqotaba waa gardarro ay u bareereen maamulka Hargeysa jooga u bareeray inuu Hargeysa Laascaanood qabsado uu buu noqday inuu taas weeye uu toon ma shakeento waxay noqotaba iyagu ma qabsaday hadeerna gacanta ku haysta